السلام الله عليكم أصحابتي ذا كودارنويا والله أو بالله أو تالله وحن شيء وارن ويسكو صور دماتي لبدان بري أرنتي سوشيال ميديا هيستي برسي waxa isweydiin mudan maxaan ka baranay horta cabsalaan inkayga ma ahan laakiin waa aqaanaa cabsalaan waxyaalaha aan ka baranay ee dhacdooyin yar yar oo in la tilmaamo u baahan ayaan tilmaami doonaa hadii aad nagu cusub tahay subscribe taada waa dhiirigelin like taada waa codsi commentigana fikirkaaga nagu wadaagtaa ku soo dhawaada barnaamijka faahfaahsan dhowr bari hore waxaan ka soo hadlay arrin dhex taalay Kamaal iyo gabar Soomaaliyeed sidoo kale iyo wiil kale oo Soomaaliyeed oo la yiraahdo Cabdisalaan dhacdadaas maadaama social media maalin u dambeeyay haysatay fikirkayga iyo waxay taliyay tusaalahan dhiibtay haddii arrintii waji ay yeelatay oo meel loo raacay ay yeelatay oo sida hadda ay u muuqato ay gabagaba taagan tahayna waxay ku qurux badan tahay in wixii mahadnaq ah iyo wixii wanaag ah iyo wixii tilmaamo arrintaas laga baran karo bulshada in looga digo u baahan inaan farta ku fiiqoon dhowr bal taasoo kale laga digtoonaado marka koobaad waxaan ku bilaabayaa horta Kamaal iyo wiilkii dhalinyarada ee muuqaalka soo wada duubay oo ay ku bilaabeen in iyagoo kitaabkii Quraanka ahaa wata oo waliba bulshada oo la horyimid bointigaas waa ku amaanaya marka koobaad wallahi billahi tallahi ilaaha ijeedo hadalka aan sheegay hadii hal been aan ku daro maxaa yeelay kitaabka Quraanka ah mar walba meeshii yaal dad fara badan oo ku dhiiran lahaa dhihla gabadha walaasha been ba ka sheegaysa wariya gabadha uu dhihi lahaa ba dib u digaya maadaama xaaladda serious ay tahay oo wax lagu dhaartana uu kitaabku ugu fadli badan yahay arrinkaas waa ku amaanaya inta waxyaalaha laga bartay aan u gudbin sidoo kale waxaan amaanayaa ninka la yiraahdo Kamaal oo go'aan geesinimo la qaatay inuu dhaawacan yahay caawi waa dareemaya ninka la yiraahdo Kamaal laakiinse waxaan ku sharfayaa oo ku karaameynaya go'aanka geesinimada leh oo qaatay in uu bulshada arrintaas uu meel u jiheeyo wixii reality aan u ka hadlo waxaan u haystay in ciyaal ay dhalin sidoo kalena madax banaan tahay arrintan markii ay social media soo gashay aniga saacidin sheegay way Kamaal waxaan leeyahay saaxiib sharaf iyo karaama leedahay maalintii dhaweyd muuqaalkan soo duubay markaan ku dhahayay Kamaalow u jawaabida iyo xifaaltan karaga marba banaan tahay marna ma banaanay hadeer arrimaha khaaska ku mashquul ano ogsoon ama ogba inaad arrinkan mar walba ku mashquulsanayd laakiin si hadalkaas uu Ilaahay iga soo saaray ee walaaltinimadan u iri waxa moodaa inuu natiijo qurux badan yeeshay oo ah in markaad baaritaan sameysay aad ku guuleystay baaritaankii anu erigaas waa iska iri waxa adiga wax kugu tilmaamay ama wax kugu ziyaadiye ma aha afkayga Ilaahay ka soo saaray laakiin si sifo qurux badan oo baaritaan lebaad sameysay wiilka garabkaaga fadhiyay arrintan 80% kala furfurayna si gaar ah ugu mahad celinaya taqaaniinaan lahay Ilaahay ma kula og yahay badani waxa raasanay oo mas'uuliyiin ah marka Ilaahay ma kula og waa tahay maxaan ka baranay baa isweydiin mudan marka koow waxa ka baranay sanadka lagu jira inuu yahay 2022 sanad waayihiisa iyo wacdarihiisa wata sababta markaas idin leeyahay waxay tahay shalay ka hor arinta halkan ay tahay meeshay dhihileed anigu ilmo waan dhalay ama ma dhalin kelmadan ay tiri ilmo ma la iska helo ani ilmo hadaan maxuu ahaayay dad hayste iyo hadaan dhalo xataa ma inkiraay ilmo shalayna arintu halkan ay taagneed aniga arrintan ilmaha horta hani waa dhashay xaqiiq way taas ayadana afkeeda waa ka qiratay sababta ay u inkirtay waxaas ilaa hadda aniga ma ogi farqiga u dhaxeeya labadaas fiidiyo markii aad fiirisid waxaad dareemaysaa in sanadka 2022 lagu jiro Soomaalida mid baan dhahayaa dhalinyaradii barnaamijkan soo bilaabay ee soo daadiyana mid baan dhahayaa Soomaaliyay waxaan ka baraynaa arrintan koow idinka idin la hadlayaa in qof bil aadana uu khaldami karo dad fara badan baa waxa ay ku comment gareynayeen gabadha maskiinta ah gabadhan waa laga qaldan yahay 25 sano gabadhan waxa weeye qof oo la qabi karo ma aha da'daas ma jiri karto ilmahaas ma dhali karto dad fara badan ba comment gareynay sida qof xun uu jiro qof xun baa jira marka lagu leeyahay
waa nin xun iyo gabar xun ama wiil xun iyo gabar xun labadaba waa jiraan. haddii aan dhahno qof dumara khalad ma gasho kamana dhacdo tan oo kala imaanaysa. kamaal hadeer wuxuu yiri warjira moog baan ahaa arrinkaas waxba kama ogeyn ilaahayna wuu ku dhaartay magaciisa inaan aamino oo ku qasbarna maxaa yeelay qofkii ilaahay ku dhaartay qofkii aamin waaya ka xun. iyadoo si cad waxay u sheegtay inaan la qabin ninkaas aysan aqoon ee ilmahaas aysan dhalin waana hooyo 5 ciyaal dhashay. marka ogaada mar walba bointiga ah gabar Soomaaliyeed war gabadha naftirkeeda il gooni ah lagu fiiriyo maxaa ka khaldan si maxaa ka saxan. dumarka gaar baan u amaanayaa arrinkan si sax ah bay uga hadlayeen oo ay dhahayeen anagu khalad baan noo muuqda waxaan ku risaan rag ayagu filanqeynayaan laas ragga qaar ee dhahaya gabar Soomaaliyeed gabadha dhahaya gabadhu haddii laga khaldiyana waa loo hiilinayaa hadday khaldan tahayna waa la taabanayaa bointiga runta loo sheegaya. cabdisalaan ninkayga ma ahan laakiin waa aqaanaa cabdisalaan waxaan ku aqaanaa horta waa qofkii wadanka Sweden keenay ciyaalkaas asaga uu dhalayna anaa u keenay. dhalinyaro uu ka kooyahay ninka la yiraahdo Cimraan oo si nadiif barnaamijkan u soo daadiyay ilaa ay xaqiiqda dhabta ay keeneen. waxaan leeyahay guuleysta taariikhda idin xusi doonta si qurux badan oo karti leh baad barnaamijkan uga qayb qaadateen. wixii gaf iyo hagardaamay barnaamijkaas ka dhex dhacdayna insha Allah waxaan rajeynayaa in si qalbi nadiif ah lagu dhameyn doono. laakiin arrinkaas arrin af libaax ku jiro oo halistiisa wata buu ahaa oo af libaaxaad ka soo saarteen. maadaama aan xogogaalahay oo cabdisalaanna nin walaalkay yahay walaashay helina ay tahay gabar walaashaya oo aan aqoon u lahaa iyagiyo ubadkoodaba magaalana aan kula noolaan jiray. ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan leeyahay saaxiibkay Kamaal waxaan leeyahay saaxiib qalbiga Ilaahay ku qaboojiyo. ninka ragga wax walba soo maraa dhibaato walba waa wajahaa haddana uu ka kabsadaa uu kufaa uu kacaa uu kufaa uu kacaa nolosha maalinba meel bay taallaa waa kufaysaa waa kacaysaa. waxaan leeyahay saaxiib qalbiga Ilaahay ku qaboojiyo hagardaamada intaas leeyahay ku soo martayna aad baan uga xumahay. waa markii ugu horeysay inta aniga hadda YouTube aan joogay oo magacaaga social media headline-ka uu soo fuulo inta kale nin mar walba magaciisa uu degan yahay baad ahayd. sharaf iyo karaama aan ku leeyahay saaxiib sida ummadda Soomaaliyeed aad u qancisay. barnaamijkii u dhaxeeyay Cabdisalaan iyo waliba Kamaal intaasaan ku soo gabagabeynayaa aniga ka fikir iyo ka hadlid ahaan wixii fikray ugu aadanna intaasaan ku soo gabagabeynayaa. haddii aan ugu cusub tahay subscribe taadu waa dhiirigelin like taadu waa codsi commentigana fikirkaaga nagu wadaagsaa intaan kulmi doono barnaamij kala mid ah oo wasiirka arrimaha gudaha Ismaamulka Soomaaliya social media idin leh. ciao ciao.